السلام عليكم. waxa kugu haboon mahadcelin mahadnaq yani inaad mahadceliso haddii aad tahay qof mahadceliya had iyo jeer waxaad tahay qof qadarin iyo qiimeyn badan oo nafafka ixtiraama farxadna ku kordhiya waayo mahadcelinta waxay inta badan la xiriirtaa dareenka farxadda oo kordhay iyo shucuurta togan waxayna tusaysaa ama dareensiinaysaa awood waayo aragnimo waxayna xoojinaysaa xiriirka nagala dhexeeya dadyowga anaga nagu xeeran ka dhigista mahadnaqa caado maalinle ah waxay gacan ka geysan kartaa dib u tababarista maskaxdeena iyo marinka mahadnaqa waa inaan ku mahadino xitaa waxyaabaha ugu yaryar ee nolosha weli intaad yara fadhiisatay ma eegtay waxyaabaha aad haysato yani ma ahan inaan diiradda saarno keliya waxyaabaha waaweyn ama waxyaabaha aan rabi lahayn inaan hayno ee inaga maqan mahadnaqu waa qayb qiimo leh oo ka mid ah waayo-aragnimada aadanaha tusaalehaan inaga sanado ka hor waxay u ekeyd in erayga mahadsani ama mahadcelin ba aanay luuqad xitaa ku jirin waayo lama isticmaali jirin laakiin hadda canuga yar xitaa markaad wax u qabato ama wax aad siiso wuxuu ku dhahayaa waad mahadsan tahay taas waxay kutusaysaa in yani xadaarad ay nagu soo ziyaaday ama waayo aragnimo ama yani aad meel naga soo gashay yani ee wax noo kordhay ay tahay oona xadaarada qayb ka mid ah mahadnaqu cilmi baarista qaar waxay ku qeexeen inay tahay jawaabta shucuureed ee aad u muujinayso ama ku muujinayso dadaal ama ficil ulakaca ee qof kuu sameeyey yacni inaad taageero u muujisay qaar kalena waxayba ku tilmaameen caafimaad inuu yahay u mahadceli qof kasta oo wax kuu sameeya ha yaraadaan ama ha badnaadaan adiga ka codso ama ha ka codsanin yacni wax waliba anything uu kuu sameeyo ha noqoto su'aalahan waxaa laga yaabaa dadka qaar markii aad meel adeeg aad u doonataan oo kale in uu isdhaho qofkan yani mahadcelinta wax gaar ay ku kooban tahay ma jirto in qofka hadiyad uu ku siiyo ama qof wax fiyo kugu siiyo ama qof wax aanad dirsan kuu sameeyey ma ahan xitaa qofkii aad wax u dirsato aad dhahdo waxaan iisoo qabo uu kuusoo qabto waa inaad dhahdo waad mahadsan tahay hadda waa sida sheegnay sidii hore kuma nihin qof markii aad wax u dirsanayso oo kale waxaad dhahaysaa hebelow adoo mahadsan waxaa iisoo dhiib horeyba waad usii horumarisay qofkii aad wax ka iibsatana dee waa sidii oo kale dadka qaara laga yaabo inay isdhahaan qofkan wax unbaad kala iibsateen labadiin waxbaad kala bedelateen oo yani wax aad ugu mahadceliso meesha ma yaalaan ha dabcan way yaalaan isaga wuxuu iigu mahadcelinayaa maadaama aan dukaankiisa yimi ama aan kastamarkiisa ka mid noqday aan wax ka iibsaday anigana waxaan ugu mahadcelinayaa la tacaamulkiisii wanaagsan xitaa hadduuna si wanaagsan ila tacaamulin wuu ii adeegay soo maaha soo waa inaan dhaho waad mahadsan tahay hadda waxaa ka hadlayno yani waa mahadcelinta bani aadamka sababtoo xadiidkan wuxuu ahaa man laa yashkuri innaas laa yashkur illaah mawduucayna maanta ama muuqaalkeena wax mawduuca kuma saabsana ama wax scripti ah u qoranay qodobayn aan u dhiganay ama meel aan wax ka soo akhrinayno ma jirto keliya way u soo dhacay waan aan soo fariistay sababtoo ah yani waxyaabaha mudan inaan ku mahadcelino ama nimcooyinka uu rabbina siiyey uma baahno inaan meel ku qorno wax aan koobi karnaan uma baahanba aslan waxaan koobi karna maaha waa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha taas markii laga soo gudbo mahadcelinta bani aadamka mahad oo dhan waxay u sugnaatay allah subxaanahu watacaala xaalad walbo ilaahay nimco badan uuna siiyey haddii aan hareeraheena eegno ama aan fiirino aan dhahno waan arkaynaa ama aan ku fikirno inta nimco iyo ilaahayna siiyey yacni ilamahan inaan soo xusuusan lahayn waxyaabaha inaga maqan ama aan u baahannahay ilaahay nimcooyin iyo raxmad badan ayuu dusheena dhigay nimcada ugu weyn oo haysano waa inaan nahay dad muslimiina diinteena ay tahay diin islaam waliba inagoonan codsanin alxamdulilah mahadceli ilaahay wuxuu ku siiyey maskax aad ku fikirto alxamdulilah qof aan haysanin maskaxda ama uu haayo yani si kale ay ugu maqan tahay mahadceli ilaahay wuxuu ku siiyey qalbi aad wax ku dareento anaga muslimiin ahaan ay noo dheer tahay inuu iimaan uu noogu jiro alxamdulilah mahadceli ilaahay wuxuu ku siiyey indho aad wax ku aragto alxamdulilah qof aan maanta haysanin yani aragti nuurkiisan looguma qaadin inuu isaga la necab yahay inagana looma siinin inna la jecel yahay ee adduunka imtixaan ayaan u joognaa imtixaan ayaan noogu socdo alxamdulilah mahadceli ilaahay wuxuu ku siiyey dhiga aad wax ku maqasho qofaan dhiga lahayn oo wax hareerihiis ka dhacaya wax kusoo socda wax loo sheegaya inta baan maqlin alxamdulilah mahadceli ilaahay wuxuu ku siiyey san aad wax ku uriso kuna neefsato alxamdulilah adduunka dadaa ku nool maanta urta ka tagtay ama xanuun ha uga tagto ama dhaawac gaaray ha uga tagto iyo sidoo kale dad aan neefsan karin oo oksijiin ku xiran oo intaasoo lacaga maalintii ama bishii lagu bixiyo si ay u neefsadaan alxamdulilah
mahad celi ilaahay wuxuu ku siiyey carab aad waxna ku dhadhamiso waxna aad ku ogolaan karto ku diidi karto danahaaga aad uga hadli karto alxamdulilah imsaan hadli karin maanta ee adduunka ku nool mahad celi ilaahay wuxuu ku siiyey gacmo aad wax ku qabsato alxamdulilah imsaa gacmo la-aana oo maanta dunida ku nool nimco waaye oo aan anaga haysano mahad celi ilaahay wuxuu ku siiyey lugo aad meeshaad rabtid ku mari kartid alxamdulilah imsaan lugo lahayn maanta xitaa maanta haddii يعني قفك هدو كشلين لهاي فعنان لهذا إن جاري هيستو فعنان لهذا إن موتو نوعا عمل أوتو يعني إن جاري أنا راعي شيء عمل قفان لوها بهينبا هذيك اللوجيس أيات ماشية دربتي كنت هي كرتها يعني أدونك مركب قف وحكى فكرة يو إنك نقيه قف كلا أو إسا كتران أي أجرا أو واحد ويسا هيستو إسا يعني العدو هو أي أهان لهاي وكوها من أي ما هاد علي هدي يعني في ما ضل صوت وستيساكي قفان سريرتك سود غني الحمد لله قفها يعني أنا دقاقة كريم أو برليسة وسريرته صارن دقاوية ولا دقيقة الحمد لله يعني جعل إساق قفها وحاسير نعيب له مقادن في ماتك إلهي وموين أنا قد جعلنا واقع ونظام مسين إلهي حقي وكسم الله الحمد لله هاد عيني هدي واق مركو بريو هاد مير أتوقع على هايستو أما هنقطة شقو أما هنقطة وحبرشو qofkii labadooda isku darsaday kaba sii daranba ilaahay subxaana watacaala nimcada ugu weyn ayuu dusheena ku dhamaystiray anagana mashquul ayaa ka sheeganaynaa alxamdulilah qof intuu caafimaad la soo toosay yani haddana sii haystaa meel uu u kalaho wax uu qabto wax uu ku mashquulo wallahi nimcaduu haystaa qofka markuu soo kaco lagu waayo mid horta caafimaad daruu sariirta uga haray mid intuu soo kacay wuxuu qabto ma hayo qolku iskaga dhex jira waayo wax shaqaa ma hayo alxamdulilah dheh haddii aad shaqo weysay adigana oo qofkii shaqo haysantay waxay aad ku baratay aad shaqo ku weyday alxamdulilah dheh ilaahay juhligu kaa soo koriyey adduunka dad badan oo juhli ku nool ama la dhintay baa jira ama ha u waayaan lacag ama yacni dhan dhaqaalaha uga baaqato ama ogaan la-aan iyaga ama qoyskooda haysatay uga baaqato oo yacni macnaha waxbarashada aanay aqoonin juhligaasoo ilaahay kaa soo koriyey oo juhliguna waxaa dhaamaa la yidhi qofka jaahilka qof sixri yaqaana taas macnaheedu ma ahan in sixirku uu meel dhow uu soo joogo ama wax mubaaxa oo yacni fudud uu yahay waxay ku tusaysaa heerka darajada hoose ee jaahilnimada joogta marka yacni inaad u fiirisid ma ahan wixii aad bartaa shaqo ku waayay aad niyad jab dhinacaasi aad ka dareentid waa inaad ku mahadiso inuu ilaahay subxaana watacaala uu kaa koriyey jaahilnimo alxamdulilah dheh mahad celi haddii uu waalidkaagu nool yahay alxamdulilah qofaa ka hormaray maanta waalidkiis ama uunan dunidaba ku arag sidoo kale xitaa alxamdulilah dheh haddii waalidkaagu aad maalin walba aad arkaysid nimcaad haysataa alxamdulilah dheh sidoo kale nimcaad weli haysataa haddii waalidkaagu aad heshiis tihiin aad maalin walba ismaqli kartaan sababtoo ah sanadka intuu bilowday waxyaaba igu yaabka badnaa waxaa ka mid ahay inaan arkay ama aan ogaaday inuu dunida ku nool yahay qof isagoo waalidkiisa aan heshiis ahayn wuxuu yidhi yani inkastoo aan commenty un aa ku arkay 2011 bay igu dambeysay inaan hooyada isla hadalno yani 13 sano hooyada islama aan hadlin colaad baa inaga dhexaysa marka adiga nimcaad haysataa istiil hadduu waalidkaaga iyo adiga uu maslaxad ilaahay iga dhex dhigay oo haddaadan is arki karin xitaa aad la hadli karto maalin walba nimcaad haysataa sidoo kale maxaad celi hadduu waalidkaagu dhintay ilaahay u naxariisto يعني waxaa laga yaabaa in nimco ku tahay in adiga dunida ay kaaga tagaan aad u duceysid aad wax u sadaqaysid yani ubadka saalixa ama yani waalidkiisa ka dambeeya wuxuu ku jiraa waxyaabaha sababkooda ama ajarkooda aanan ka go'in oo isagoo qabriga ku jiro weli u sii socdo waxaa laga yaabaa inaad ka nimcad badan tahay oo waalidkiisu nool yahay laakiin caasiya yani inkaarun sii kasbanaya ama wax uu qabanaya aanay jirin laga yaabaa inaad adiga يعني أتكون أكسنده خير قوها ما هتعلي سو كان ما هتعلي هدي هي ستوكرة يعني ولا هلا أما ضد أذيك سئون وجعل ليك يا صاحبها نقضان ولا لا نقضان ضد وح كربانة هي سنين وحقف يعني أي كتير سدان أما أي تير سدان أنا هي سنين هدي ولا لا صاحبه أنا أكسن إلى كشي ولا لا أنا أكسن أنت هي سنين وقربك وبوحو وحكام كان مجران ما هتعلي يعني وحولي بقى ترتي وكامقا وحلقيا وح إياه كخير بدن إنه ربينا لدى المسيحي وح ربنا دي أكثر كرينه
ama wixii soo daho ayuu khayrku ku jiraaye inay noo soo socdaan keliya aan anaga degdegayno. xaalad walbo ilaahay wuxuu mudan yahay in loo mahadceliyo. marka lagu leeyahay alxamdulilaahi calaa kulli xaal, waa xaalad walba aad ku jirto inaad ilaahay u mahadso. haddii aad faraxsan tahay, haddii aad murugaysan tahay, haddii aad caafimaad qabto, haddii aad xanuunsan tahay, hadday faqri tahay, haddii aad taajir tahay, yacni xaalad walba aad ku sugan tahay inaad dhahdo alxamdulilah. alxamdulilah leh haddii qof yacni caafimaad qabo aad tahay, oona aad ugu yaraan aad tahay qof 5 waqti tukanaya, waxaa jiro ama aan ogaaday inay jiraan dad ay salaadu ku adag tahay. dadkaasi waa dad uu rabbigaan u diiday inay hor istaagaan, waayo salaada qofku markuu tukanayo waxay la mid tahay yacni waa waqti walba uu rabbigiis uu hor istaagayo. dadaa ilaahay culays uga dhigay ama uu diiday inay hor istaagaan, ayagana waan u ducaynaynaa ilaahay soo hadeeyo. adigana nimcada ugu weyn oo haystaad ka mid tahay haddii maalin walba aad caafimaad inta la soo toostid, aad 5 waqti tukanaysid, aad rabbiga xasuusatid. dadaan geeri xasuusan, dadaan rabbi waan xasuusan, yacni dadaa fitanka iyo waxyaabaha dunida ka dhacaya si xun ay u saameeyeen, ama qaarkood markii horeba aanay muslim ahayn. anaga alxamdulilah nimcada ugu weyn oo haysanaa waxay tahay inaan nahay dad muslimiina. dadka aan diinta haysan markii aad fiiriso, ilaahay baan ku dhaartay xitaa haddii aanad caafimaad qabin, waxaad inay nimco kugu dhammaystiran tahay aad ogaanaysaa inaad tahay qof muslim ah, diintaadu ay tahay diin islaam. dadkii ugu qaar marka aragtid, yacni qofku wuxuu doono ku hadlayaa, wax celinaya oo xindaaba u dhigan ma jirto. waxaad isdhahaysaa yacni qof sometimes markii aad fiirisid waxay kula ekaanayaan dad xayawaanka xitaa ka nolol fiican, qaabka ay u nool yihiin xayawaanada inay dhaamaan. marka yacni in tacudu nicmat allahi laa tuxsuuha, ma soo koobi karno inta nimco aan haysano. wax inaga maqan keliya haddii aan diiradda saarnana wax aan haysano ayaan ilaaweynaa. markuu si aan u qanacsanaano, aan u ahaano dad degan, farxad dareemaya, waa inaan ku mahadino inta aan haysano. ilaahi subxaana watacaala aayad quraan wuxuu ku yidhi la in shakartum la asiidannakum, haddii aad shukridaan waan idin siyaadinaya. haddii ilaahi subxaana watacaala intaan haysano aan ugu mahadino waynoo siyaadi doonaan. waxa kale aan u baahan nahayna dib iska soo socdaan anagaa ka degdegayna. ugu dambayntii mahad celi waxaa inoo timid bishii barakaysan ee ramadaan oo ilaahay caafimaad nagu soo gaarsiiyey. dad badanaa ka nasiib badannahay maanta oo aan u qorshaysnaynba inay soomaan. dad badanaa ka nasiib badannahay oo ka nimcad badannahay maanta oo ku fikiraya yacni ama murug ku hayso waxa ay ku soomi doonaan, ku suxuuran doonaan, ku furi doonaan, yacni waxa ay cuni doonaan. ilaahay wuxuu yacni mahad celi, waa ilaaway bay mahad celi. haddii markii aad gaajooto yacni aadan ka murugoonayn maxaad cunaysaa oo keliya aad go'aansatid inaad wax cunto, qofaa maanta wax cudurada aanan haynin laga yaabo dhowr maalmood inuu gaajo ku joogo. hadda marka dad laga yaabaa inay ku murugaysan yihiin maxaad ku soontahay. dad kale oo labadu isku darsadeen way jiraan. ka waran haddii colaad yacni nabad la-aan iyo gaajo aad isku darsato, miyaanay ahayn dad la imtixaanay? dadkaas waxaan ka hadlayaa, waa dareemi kartaa walaalaheen reer falastiin intaasoo sano ayaa madaafiic ku socto, waalidkood la dilayaa, xaasaskooda la dilayaa, caruurtooda la dilayaa, yacni waa la imtixaanay. yacni laakiin wax kale u awoodno ma jiraan, yacni aan duco ka ahayn iyo inaan qalbiga iyo niyadda ka taageero. ilaahay dhibka ka dulqaado. anaga alxamdulilah nimcaan haysanaa, nabadaan ku soomi doonaa hadduu ilaahay idmo. wax aan kama fikirayno, xilli aan soo daalay meel aan nasiino u aadno kama fikirayno. qofka hadduu daalo si raxmad u seexanayaa. mahad celi haddii aad inta soo daashid maalintii aad habeenkii si raaxa leh aad ku seexato. qof aan seexan karin ilaa cirbad la duro ama daawo la siiyo si kale una ku seexanayn, anaga waa iska seexanaynaa inagoona dareemin intaasoo saacadood aan soo jiifaynaa, intaasoo saacadoodna hurdaynaa. intii aan soo jeednay ku dhowaadkeeda waaye, mana dareemayno. waa nimcad ilaahay. qofaan xanuun la soo jeedi karo xilligaas oona hurdin, oo yacni la dheer yahay waagu mar unuu waagu baryo, sida inuu yacni uu u malaynayo in waagu markuu baryo uu fiicnaan doono oo kale. alxamdulilah nabadaan ku seexanaynaa. wax yacni aan ka murugayno oo madaafiic nagu soo qufanayo ma jiraan. laakiin dadaan yacni hurdadoodii kurba ku hayso wax kalema dhayno waan u ducaynaynaa. marka anaga dadkaasaa ka nasiib badan nahnay. cidda uu ilaahay yacni niyadiisa ku sugayeen inuu soomo, iyo qof wax uu ku soomaba aanan haysanin, qof yacni nabad meel u joogo aanan haysanin. alxamdulilah nabad aan haysanaa. ilaahi subxaana watacaala
una siiyey nabad iyo barwaaqo ayaan ku jirnaa. Soonka yacni ilaa ajirkiisa ina siiyo maahane wax qurba hadda inaguma hayo yacni inaguma hayo. marka waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan wanaagsan, ramadaan mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلهنا نريبو كوي كفايديستي يعني وحرجينا إنه ما لا يعني إنه ضافين عن سفيانه وفايديسنا وين سوى لنا هاي تطلعنا ليا ورمضان كهرين إن الله صومين بس ما أنت تريد جوبي هذه ولي واد نوش هاي نسيوا لنا هاي الحمد لله ده وحي أتقل ضي وتصيح كرتها ولي نسيوا لنا واد نوش هاي أنت قالت كشيء واحد إسكو يعني إسكو ولا ضي كلمة طيب وتنسي بلانت هاي ولي wax badanaad six kartaa, wax badanaad hagaajin kartaa, wax badanaad xaqiijin kartaa. marka waa inaad ku mahadiso nolosha aad nooshahay. okay marka waxa kaliya aan idin soo kordhiyey oo hadda cusub ama aan idin baray ma jirto, kaliya waa iska xasuusin iyo inay igu soo dhacday mawduuc noocan ah ama muuqaal noocan inaan soo duubo iyadoon ku lifaaqan tahay yani tahliyadaynta ama inaad idinkugu hambaliyeeyo bisha barakaysan ee ramadaan. marka laan idin leeyahay ramadaan mubaarak, ilaahay naga dhigo inoogu dambi dhaafay bishaan gudaheeda naartana jirkooda loogu xoreeyey insha allah. haddaba waxaan isku dayi doonaa yani ama aan ku fikirayaa barnaamij taxane ah oo yani bishaan ramadaan socon doono. aan rajaynaya inaad wax ka faa'iidaan. mashquulkayga aad u badan waana ku mahadcelinayaa midaas, waayo qof aan sidan soo sheegnayba aanan haysanin wax ay ku mashquulsho. aniga alxamdulilah nimca ii dhamaystiran, shaqo iyo waxbarasho aan isku haystaa iyo caafimaad iyo dhalinyarnimo. marka barnaamij noocaas ha ku fikirayaa inaad sameeyo insha allah, ilaahay ii fududeeyo. adinkana dee waa meeshaan ugu yaraan naga daba keena 2000 iyo xoogaha soo gaarto 1909 soo maraysaa yani qarniyo aan kasoo tagnay. marka meeshaanna waxay u baahan tahay taageero. waxaan rajaynayaa inuu muuqaal kooban laakiin wax yaroo iska xasuusina uu yahay. waad ku mahadsan tahay muuqaalkan aad daawatay. fadlan ilooyin muuqaalka inaad like saarto oo haddii aad ka heshay waxaadna sii sheer garayso. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye bye.